xidigaha kubadda cagta ciyaara waxa ay sameeyaan ficilo ay ku duwan yihiin sira badan dhanka muuqaalka marka loo eegana waxaa jira laacibiin shashada kala soo muuqda astaamo gaar ah oo iyaga u qaasa waxaan filayaa inaad garanayso Antoine Griezmann ninka reer Faransa balse miyaad ogtahay sababta uu mar walba ugu ciyaaro maaliyadda gacmo dheeraha ah haddii aad doonayso inaad ogaato fadlan inala daawo muuqaalkan inta aan guda gelin haddii channelkeena Xaviino YouTube uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo nagu soo biir riixna gambalelka digniinta si durbaba ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha leh oo aan bartan soo gelino like saar muuqaalkan una share gari asxaabtaada aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan warbixintani waxa ay taaban doontaa sababta uu Antoine Griezmann mar walba ugu ciyaaro maaliyadda gacmo dheeraha ah tusaale Francesco Totti waxa uu caan ku ahaa inuu hoos u dhigo sugisaantiisa balse Griezmann waa mid si dhow loogu garan og yahay labiskiisa laga soo bilaabo markii uu joogay Real Sociedad maba Atletico Madrid xitaa xulkiisa Faransiiska iyo kooxdu uu haatan joogay ee Barcelona Griezmann waa mid mar walba xirta maaliyadda gacmo dheeraha ah astaantaasi ninka reer Faransa waxa uu ku noqday mid caan ah dadka qaar ayaa taasi ku micneeya siyaabo kala duwan balse iyadoo aan sharaxaad badan la gelin jawaabta saxda ah ayaa noqonaysa sabab la xiriirta haligii hore ee xulka qaranka dalka Ingiriiska David Beckham ayaa xiran jiray intii uu xidiga ahaa inta badan maaliyad gacmo dheera ah taasina waa waxa uu kaga daydo Antoine Griezmann David Beckham waxa uu jeclaan jiray ku ciyaarista lambarka 7 sidoo kale Griezmann waxa uu jecel yahay ku ciyaarista lambarkaasi sabab la xiriirta haliga uu ku daydo Griezmann waxa uu aad u jeclaa qaab ciyaareedka David Beckham waana sababta uu ugu daydo mar walba xitaa marka aad u fiirsato qaab jirrinka iyo midabka timihiisa aad ayuu ugu daydaa David Beckham muuqaal ahaan waxaad eegtaa sawirka David Beckham oo jooga Real Madrid iyo qaabka timihiisa ay yihiin mid ka mid ah waqtiyadiisii kooxda Los Blancos waxaad arki karaysaa in qaabkaasi xilligan Antoine Griezmann uu timihiisa u ekeysiyay Griezmann waxa uu aad ugu daydaa David Beckham weliba si caadiga ka baxsan waxa uu ka jawaabay sababta uu maaliyad gacmo dheeraha ugu ciyaaro isaga oo yiri waxaan ku ciyaaraa maaliyad gacmo dheera ah sababtuna waxay tahay David Beckham ayaa xiran jiray sidoo kale lambarka 7 dartiis ayaan u qaataa Griezmann waxa uu David Beckham kaga daydaa dhan walba haddii ay noqon lahayd labiskiisa iyo habjirrinkiisa timaha waxa iska cad Griezmann garoonka gudihiisa kuma soo bandhigo qaab ciyaareedkii farshaxanka ah ee David Beckham inkastoo boos ahaan ay kala bedelan yihiin David Beckham ayaa isaguna muujiyay sida uu u taageero xidiga reer Faransa ee Antoine Griezmann waxaana uu yiri haliga reer England waan jeclahay habka uu u ciyaaro dhab ahaan waxa uu leeyahay tayo sare waa mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan kubadda cagta mar aynu wada kulannay hubaal waa shakhsi wanaagsan weliba dabacsan Antoine Griezmann wuxuu haatan ka tirsan yahay Barcelona waxaana uu ku dhibaatoonayaa in si fiican uu la qabsado nolosha kooxda ka dhisan gobolka Catalan inkastoo weli uu haysto waqti uu isku muujin karo Antoine Griezmann waxa uu xulka Faransiiska ku hogaamiyay hanashadii koobkii adduunka 2018 ee lagu qabtay dalweynaha Russia waana xidig cajiib ah oo xushmad ka hela dhammaan shaqada kubadda cagta marka uu ku jiro xindaabka cagaaran iyo marka uu sanba kulanka ciyaaraynin magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nur Xaviino aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan